رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد بري أيا قلبت soo xiray shirweynaha toddobaad ee garsoorka Soomaaliya shirkan oo ah mid sanadlaah ayaa halku dhigiisu waxa uu ahaa casriyeynta garsoorka iyo horumarinta cadaaladda oo saldhig u ah dawlad dhiska wadajirka bulshada iyo sidoo kale qorshaha dawladda ee la dagaalanka musuqmaasuqa رئيس الوزراء حمزة عبد بري oo ka hadlay shirka ayaa xusay in xukuumadda dan qaran iyo guud ahaan dawladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahmiyad weyn siisay horumarinta garsoorka iyo hay'adaha cadaaladda waxaan isku daynay markii ay xukuumaddan timidba aniga iyo madaxweynuhu runtii si xoog leh inaan ula tashano mas'uuliyiinta garsoorka joogta inaan isla garanno inaan sameyn karin dawlad wanaagsan hadii aan garsoorka aan la wanaajin inaan musuqmaasuq la dagaalami karin inaan oo wax walba asaas wax kasto xun asaas u ah khabaa'idka la sheegi jiray inaan la diriri karin hadii aan garsoor sax la helin waxaad markhaati ka tihiin isbedel weyn inuu ku dhacay garsoorka waxaad markhaati ka tihiin inay markii ugu horeysay dadkeenu ay fursad u heleen inay fiirsadaan waqaaicdii maxkamadaha iyo doodihii garsoorayaasha difaacayaasha iyo ogayaashuba ay isku dabamarsanayeen ay dadka eedaysanayaashu isku difaacayeen si cad oo dadku ay wada arkayaan oo muuqata gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo munaasabada ka hadlay xiritaanka shirka sanadlaha ee garsoorka dalka ayaa xusay in dawladda federaalka Soomaaliya uga mahad celinayo taageerada weyn ee ay siiso horumarinta garsoorka dalka runtii waxaan aaminsanahay garsoorka iyo cadaaladdu dhammaanteedna aynu aaminsanahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxa uu weyn faray tahay cadli iyo ummadda dhexdeeda cadaalad loo sameeyo in garsoor la'aantii iyo cadaalad la'aantii iyo sharci la'aantii inaanay ummadi jiri karin oo Soomaaliyana waxa baabiyay waxa weeye waa markii tabashada cadaaladdu ay timid deetana qof walba uu isku dayay bal xaqqa ka maqan helo inuu qori qaato oo gacantiisa ku helo xaqa ama tabashada uu isagu qabo taasi hadii aanay dhacday waxaan isleeyahay dalka Soomaaliyeed halka ma gaarin dalkeenu waxa uu qaatay in adeegyada kala duwan ee guud ahaan dalka lagu fuliyo hanaanka casriga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda dan qaran ay ka shaqeynayso inay cusboonaysiin dib habeyn ku samayso shuruucda kala duwan ee ka hadlaya hanaanka garsoorka iyo cadaaladda dalka isla mar ahaantaana dib u eegista dastuurka dalka lagu jaangoyn doono waxa uu tilmaamay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xukuumadda dan qaran ay ka go'an tahay horumarinta madax bannaanida garsoorka dalka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dooda oranaysa in la cusboonaysiiyo shuruucda waana ku dadaalaynaa hadii la yiraahdo in la cusboonaysiiyo shuruucda waa inaan cusboonaysiinaa waana inaan waafajinaa dastuurkeena waa inaan waafajinaa shuruucdeenu ay la jaan qaadaa caqiidada diinta dhaqanka shacabka Soomaaliyeed waa inaan ka saarnaa wax kasta oo aan la jaan qaadi karin muddooyinka u dambeeyay garsoorka dalkeenu waxa uu sameynayay tallaabooyin waaweyn oo dhinaca horumarka ah warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka toddobaad ee sanadlaha ee garsoorka dalka waxaa lagu bidhaamiyay muhiimadda ay leedahay dhismaha adeega garsoorka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka Nasra Bashiir Ali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.